wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo xalay agaasimaha ku meel gaarka ah Nisa Yaasiin Cabdullaahi Farey ku amray in ciidanka Nisa uu ka soo saaro gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay amarkaasi. wasiirka ayaa qoraal kale oo uu soo saaray wuxuu ku sheegay in amarkaasi uusan qusaynin ciidamada Nisa ee ilaaliya baraha kontarool ee laga galo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho balse uu ku kooban yahay dharcadda ka howlgasha gudaha garoonka. isbeddelka la xiriira ciidamada Nisa ee ka howlgala garoonka aadan cadde wuxuu quseeyaa oo kaliya ciidamada dharcadda ah ee ka howlgala garoonka diyaaradaha mana quseeyo ciidamada gacanta ku haya baraha kontaroolada ee laga gala garoonka aadan cadde ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. wasiirka ayaa qoraal uu soo saaray fiidnimadii hore ee xalay wuxuu ku shaaciyay in go'aanka ciidanka Nisa looga saarayo garoonka la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay'adaha dawladda ee ka howlgala gudaha garoonka. sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in ciidamada Nisa ay ku kaceen xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaado joogto ah kuwaas oo cadeymo loo hayo sida uu sheegay. amarka wasiirka ee lagu dalbaday in ciidanka dharcadda ah ee Nisa laga saaro garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa laga sugayaa Yaasiin Farey inuu dhaqan geliyo axadda maanta ah sida ku cad warqadda wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur. garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa waxaa ka howlgali jiray ciidan nabad sugid dharcad ah waxayna ciidankan markii hore si toos ah u hoostagi jireen kaaliyihii agaasimihii hore ee Nisa Cabdullaahi Kulane. inta badanna waxaa loo adeegsan jiray arrimo siyaasadeed oo gaar ah iyo in dadka ka dhoofaya garoonka qofkii ay doonaan laga xanibo safarkiisa. dhinaca kale shirka golaha wadatashiga qaran ayaa la filayaa inuu Isniinta ka furmo magaalada Muqdisho kadib markii ay soo wada gaareen dhammaan madaxweyne goboleedyada dalka. yeeshee shirka ayaa wajahaya caqabad xoogan waxaana yar fursadda laga qabo in lagu meel mariyo laba qodob oo xasaasi ah kuwaas oo ay gadaal ka riixayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo qaar ka mid ah madax goboleedyada dalka. sida aan ogaanay qodobka koowaad ayaa ah in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo. qodobkan ayaana waxaa si aad u doonaya Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo Cali Guudlaawe oo ah hogaamiyaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo caqabad ka kala haysata magaalooyinka Garbaharey iyo Beledweyne. ra'iisul wasaare Rooble oo markii hore ka cagajiiday fikradan ayaa la sheegay inuu hadda taageerayo kadib markii ay isku xumaadeen Farmaajo oo aad uga soo horjeeday arrintan horeyna uga digay. qodobka labaad ayaa ah in ra'iisul wasaare Rooble doonayo in shirka laga soo saaro baaq ah in amniga dalka si buuxda ra'iisul wasaaraha loogu soo wareejiyo haddii aanay taasi dhicinna aana dalka doorasho hufan ka dhici karin. Farmaajo ayaa horey Rooble ugu wareejiyay amniga doorashada balse taasi wax weyn ma bedelin waxaana weli hay'adaha amniga si buuxda gacanta ugu haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ra'iisul wasaaraha ayaa rumaysan in haddii ay golaha wadatashiga qaran ee qodobkan isku raacaan shuruudna uga dhigaan dhamaystirka doorashada in ay hogaamin karto in beesha caalamku ay cadaadis ku saarto Farmaajo inuu sidaasi sameeyo inkastoo ay u badan tahay in Farmaajo uusan marnaba taas aqbali doonin. ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa qorsheynaya in haddii uu amniga gacanta ku dhigo in uu bedelo dhammaan taliyayaasha ciidamada dalka si awoodda dalka si buuxda gacanta ugu dhigo. si kastaba qoorqoor iyo lafta gareen oo ku xiran Farmaajo ayaa lagu wargeliyay inaysan marnaba ogolaan labadan qodob waxaana diidmadooda ay ka dhigi kartaa in shirka uu ku soo dhamaado natiijo la'aan ama laga soo saaro qodobo aan macno badan lahayn. ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in goordhow uu dagaal dib uga qarxay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi kaasoo u dhaxeeya ciidamada Hirshabelle iyo kuwa kale oo taabacsan sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo kamid ah saraakiisha haatan ka soo horjeeda maamulkaasi. dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu yimid kadib markii ciidamada maamulka Hirshabelle oo kaashanaya kuwa dawladda gaar ahaan qaybta 27aad ee xoogga dalka ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada sargaalkaasi ka sameysteen duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana halkaasi haatan ka socda iska horimaad u dhaxeeya labada dhinac. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka xooggiisu uu ka socdo deegaanka la yiraahdo Qowlad isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. macadda ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan waxaana weli rasaas xoogan laga maqlayaa duleedka Beledweyne. dagaalkan ayaa daba socda iska horimaad habeenkii Jimcaha ka dhacay magaalada Beledweyne kadib markii la weeraray kolonyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan. gudoomiyaha oo ka hadlay xiisadaasi ayaa hanjabaad u diray saraakiisha ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle ee ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wuxuuna sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan amniga
sidoo kalena ay ka hortagi doonaan dadka lidiga ku ah nabadgelyada. dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka oo la xiriira dagaalka haatan dib uga qarxay halkaasi. xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana marka ka dambaysa sii xoogaysanaya dagaalka oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka deegaanka.